shan iyo labaatan qof oo isku hal famila oo cudurka u wada dhintay ayaan u soo joogay waxaa maaragtay lasoo xisaabiyey lacagta ku baxda dadka Soomaalidu ay ku bixiyaan cudurkan daawadiisa medical tourism India Malaysia meelaha ugu badan oo ay dadka Soomaalidu aadaan waxaa lagu qiyaasay lacag inay ku baxdo dadka Soomaalida ay ka baxdo sanad kasta $1 bilyan ilaa $2 bilyan oo dollar waxaas oo lacaga waxa weeyaan waddankeena oo dhan ayay dhistaa marka waxa weeyaan psychological impact ayuu leeyahay culays oo wuxuu leeyahay qoyskii waxa weeye maanta qof uu kansar kaga dhaco way cayrtoobayaan hantidoodii dhan bay iibinayaan guri hadday lahaayeen hanti ma guurtaan si ay qofkaas u soo daaweeyaan wax maaragtay runtii laga sheekeyn karo maaha hal mar ah ayuu cudurkan annagoo aan u diyaarsanayn nagu habsaday marka annaga daata saxa ma hayno sanadkii meeqa qof ayaa cudurkan la soo dhacda oo Soomaali ah daatadii saxda ahayd ma hayno because wax hore loo aruurin jiray cancer registry ma qabno hay-ado international ayaa waxay rabaan noo dhoobeen ayaguna waxay leeyihiin 12,000 oo qof Soomaali ayaa sanadkii la soo dhacay laakiin anigu waxaan aaminsanahay inay aad uga badan tahay intaas bas waxaa ka dareemaysaa magaalada Muqdisho kali ah dadka warsato qoys uu qof ka dilin waa yaryahay ama qof kasta wuxuu yaqaanaa qof waxa weeye cudurkan kansarka u dhintay